الخطاط عثمان طه. وأنا الذي كتبت منحنيا، وحتى آخر العمر منحنيا سأكتب. وأنين أيدتكو دميلا دعين فرتيسا قروح دادا يفرشعن كيسا توسن wuxuu gala da'diisii 70-yada walina fartiisii qurxooneed iskama aysan bedelin sidii waaguu dhalinyarada ahaa. Dr. Cusmaan Daaha waxa uu muddo nus qarni qorayay kitaabkeena shariifka ah ee Quraanka Kariimka. Aaladihiisa uu wax ku qoro si gaar ah ayay ugu diyaarsan yihiin, isaga ayaana samaystay mid walbana xuruuf u gaar ah ayuu u isticmaalaa. Shaqadiisoo dhanna waxa ay tahay inuu Quraanka Kariimka ah gacantiisa maalin walba ku qoro. qof walba oo kitaabka Quraanka akhrisanaya marka uu isweydiiyo yaa qoray kitaabkan waxa durba maskaxdiisa ku soo dhacda in lagu qoray kombiyuutar, balse arintu sidaas ma ahan ee Sheekh Cusmaan Daaha ayaa gacantiisa ku qora. بداية كان من والدي شجعني. bilowgii hawshan waxa ay u dhiirigeliyay aabahay oo markaas imaamka ahaa masjid ku yaala magaalada Xalab, isaga ayaana gacantiisa igu sameeyay jiray qalinka iyo khadaba. waqtigaas ma jirin qalimaantan casriga ah oo la soo iibsanayo, qof walba isaga ayaa qalinkiisa iyo khadiisa u sameeysan jiray. hadda se alxamdulillah wax walba waan haysanaa, waa inaan ka faa'iideysanaa. waxa uu rumaysan yahay inuusan hibadiisan qofna ka dhaxlin. marka uu yaraa ayuu isku arkay inay fartiisu qurux badan tahay, waa uuna dadaalay ilaa uu ka noqdo mid ka mid ah dadka ugu caansan ee wax qora. أول عمل قمت به shaqadii u horeysay aan qabto waxa ay dirtay wasaaradda diinta iyo awqaafta Suuriya. xilligaasina Suuriya ayaan ku sugnaa. aad ayaan uga baqayay mowduucan, balse kitaabkii u horeeyay aan qoray markii la arkay dadku aad ayay ugu bogeen, waxayna iga dalbadeen inaan kitaabta qoro. marxalado kala duwan ayuu soo maray Dr. Cusmaan Daaha inta uu kitaabku qorayay, mana ahan mid qora kitaabka maskaxdiisa ku mashquulsan hawlo adduunyo. sidaas daraadeed mararka qaarkood halkii kitaab waxa ay ku qaadataa inuu ku qoro 2 sano gudaheed. waxa uuna qori karaa ama ku takhasusay 7 qiraa'adood uu Quraanku ka kooban yahay.